السلام عليكم دمان ميل كسا دونيدا دافيدا ka joogtaan soo dhawaada asxaabta ku soo dhawaada kambaniga Minara Homes oo ku yaala magaalada Nairobi. Minara Homes wuxuu idin hayaa guryo iiba guryaha oo dhiso waxa ay ku kala yaalaan xaafadaha ugu wanaagsan ee magaalada Nairobi sida Westland, Backland, South Sea iyo Kaleshwa. xaafadahaas oo ah xaafadaha ugu wanaagsan ayuu kambaniga Minara ka dhisaa guryaha. Guriga shaashada uga jeedaan wuxuu ka mid yahay guryaha ay dhisto Minara House waxaana ku yaala xaafada Westland. waxaan rabaa inaan wax yar idinka sharaxo gurigan adeegyada uu leeyahay. Gurigan wuxuu ka kooban yahay 2 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha. wuxuu leeyahay sidoo kale 3 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha. wuxuu leeyahay 4 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha. sidoo kale 4 qol waxaan idinka haynaa 2 qaybood. labada qaybood oo qaybta koobaad ay tahay 4 qol oo caadiga ah oo hal flood ku taalay. qaybta labaad waa iskorsaar iyadoo qaybta hoose ay ku taalo fadhigii, diningkii, qolkii shaqaalaha, kitchada iyo qolkii martida ay kugu taalo. qaybta jaranjarta ee kore markaad kortidna waxa kugu yaala 3 qol oo 3 qol baa musqulahooda gudaha ku wataan. wuxuu leeyahay 5 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha. waxa ugu badan uu leeyahay waa 5 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha. adeegyada kale oo dheeraadka uu gurigu leeyahay waxa kamida masaajidkii oo 5 waqti aad ku tukan kartid. sidoo kale wuxuu leeyahay madrasadii ilmuhu ay quraanka ka baranayeen. waxa ku yaala swimming poolkii oo 2 qaybood kala qaybta dumarka iyo qaybta ragga. sidoo kale waxa ku yaala gymkii oo isaguna kala leh qaybtii ragga iyo qaybtii dumarka. gurigu wuxuu leeyahay 3 lifti oo waaweyn oo mid kamid ah loogu talagalay dadka markay guriga degayaan inay alaabtooda ku rartaan si ay alaabtu uga jajabin. sidoo kale kama walwalaysid inay korontadu ka tagto. gurigu wuxuu leeyahay motor oo korontadu marka ay ka tagto ku soo dhacaya. sidoo kale gurigu wuxuu leeyahay ceel oo kama walwalaysid inay biyuhu ka tagaan. gurigu adeegyada uu leeyahay oo kale waxa kamid ah goobtii caruurtu ku ciyaarayeen. wuxuu leeyahay garden markaad shaqada ka timaadid ama aad hawl maalmeedkaaga soo sameysatid aad ku nasatid oo gardenkaas oo aad u qurux badan ayuu gurigu leeyahay aad ku nasanaysid. sidoo kale gurigu wuxuu leeyahay 2 baakin uu leeyahay oo qofkiiba loogu talagalay baakin ay 3 baabuur u gali karto. waxaan leenahay ku soo dhawaada guryaha ay dhisto Minara Homes oo aad ka heli kartid guryo tayadoodu aad u fiican tahay wali maran ku yaala meel aad u qurux badan oo kamid ah xaafadaha magaalada Nairobi ugu muhiimsan. daawadayaal adeegyadan halkan idinku soo sheegay dhammaan guryaha ay dhisto Minara Homes way wada leeyihiin adeegyadaasi. gurigu wuxuu leeyahay view aad u qurux badan oo adigoo balkoonka gurigaaga fadhidid aad daawan kartid Karura Forest. gurigu waxa uu ku yaalaa xaafadaha ugu amniga wanaagsan magaalada Nairobi. sidoo kale wuxuu daris leeyahay safaaradaha. qiimaha guryaha waa mid macquul ah. sidoo kale waxaad haysataa 4 sano oo aad lacagta ku bixin kartid iyadoo aysan jirin wax korsaara. mar kale waan ku soo dhaweynayaa kuna soo dhawow Minara Homes. wixii faahfaahin dheeraad ah aad u baahan tahay igala soo xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda.